jeermisku ma buurna. Tani waa waxa maqaarkooda hoostiisa ku jira. Gudaha bannaanka wareegsan waxaa ku yaal xayawaan laga sameeyey muruq cufan. Hilibka waxaa lagu qiyaasaa inay leeyihiin qiyaastii 5% dufan jirka ah oo la mid ah kuwa jirdhiska sameeya ee heerka sare ah. Inkasta oo ay ku nool yihiin cunto laga sameeyey caws gebi ahaanba. Jidhkoodu aad buu u cufan yahay oo ma dabaalan karo. Taa beddelkeeda waxay ku quusaan salka webiyada iyo harooyinka, oo orod dhulka webigu ku socdo. Inta badan biyaha hoostooda ayuu ka dhaqso badan yahay marka loo eego in aadanuhu uu ku dabaalan karo dusha sare. Muuqaalkooda weyn wuxuu ka yimaadaa maqaarkooda ee ma aha dufan. Maqaarka jeefta wuxuu dhererkiisu yahay qiyaastii 5 sentimitir, iyadoo lakab cufan oo biyo ah uu ka hooseeyo lakabka unugyada isku xira. Wadajir ahaan, lakabyadani waxay u dhaqmaan sidii hub dabiici ah, iyagoo ka caawinaya inay qoyaanka ilaaliyaan oo ka ilaaliyaan foolka waaweyn ee kori kara ilaa 50 sentimitir dherer ahaan. Dhididkaas cas dhiig ma aha. Waa dheecaan dabiici ah oo u shaqeeya sidii kareemka qoraxda iyo ka hortagga bakteeriyada labadaba, isagoo maqaarkooda ka ilaalinaya fallaaraha UV iyo caabuqa biyaha wasakhda ah. Way u ekaan karaan kuwa jilicsan, balse jeefta waa xayawaan hubaysan oo murqo badan oo xoog leh.